السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيارات وحرن channelkeen أحمد Daaraqooni kusoo dhawaada qaybtii toddobaad maxaad ka taqaanaa dhulka. Dhulku waa meesha ay bini'aadamku ku koreen sidoo kalena ay ku dhiman doonaan. Qaybihii hore waxaan uga soo hadalnay dhulka biyaha yaala, inta qof ee ku nool, qaaradaha iyo wadamada ku yaal, iyo sidoo kale lama deegaanka. Insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa space-ka. Dhulka maahan meeraha kale dhulka maahan meeraha kaliya oo Alla abuuray, balse kuwo kalena waa ay jiraan. Ilaa hadda waxaa la helay 9 meerayaal oo aan isla ekayn, waxaana loo kala hormariyaa sida ay qorraxdu u xigaan. Waxaana ugu horeeya Mercury, Venus, dhulka, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune iyo Pluto. Dhulku waa meeraha saddexaad xagga qorraxda markii laga soo tiriyo. Dhulku waxa uu jiraa qorraxda masaafo dhan 92.96 milyan oo mayl. dhulku waxa loo qiyaasaa inuu yahay 196.9 milyan oo square mile. dhulku waxa uu leeyahay hal dayax, xilli kuwa qaarkood ay leeyihiin 60 dayax. masaafada dhulku uu jiro dayax ayaa loo qiyaasaa 238,900 mayl. xilliyadii hore waxaa la sheegi jiray inuu dhulku yahay bartamaha meerayaasha, oo ay meerayaasha iyo sidoo kale qorraxduba ay ku wareegaan dhulka. balse markii dayax gacmeedyada cirka loo diray kadib waxaa la soo ogaaday in qorraxdu ay tahay midka ay meerayaashu ku wareegaan. waxaana laga yaabaa in sida hadda loo sheegay ay qalad noqoto oo teknoolajiyadda aan hadda haysano mid ka heer sareysa ay jilalka dambe helaan oo ay arrimo kala soo cadaadaan. markaan arrimahan ku sheegay kama dhigna inay sax yihiin, balse waa inta hadda aan ognahay. masaafada u dhaxaysa dhulka iyo Venus oo ah meeraha nagu xiga ayaa loo qiyaasaa 261 milyan oo kiiloomitir. sidoo kale dhulku waxa uu jiraa Mars oo ah sidoo kale meeraha nagu xiga masaafo dhan 54.6 milyan oo kiiloomitir. waxaan filayaa waxaan kaga faa'iideeyay mowduucan maxaad ka taqaanaa dhulka qaybtiisii toddobaad. inta ka kulmi doono muuqaalkan la mid ah idinka ee tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.